dagaalkii ka socday aalka jamaacad alle ama dadka dheer ee u dhexeeyey ciidamadii shareecada la dagaalamayay axmed nawawi hogaaminayay iyo walaayada islaamiga jabooyinka in la soo afjaray saacado ka hor ayaguna ay dagaalkaasi ku jabeen lana sii bacsanayo mujaahidiintu ay qaadkooda ay ku taagan yihiin insha allahu intaa unbaan rabnaynaan aan usoo bandhigno saxaafadda dadka muslimiinta ahayna dhagahooda ay maqlaan ay ku raaxaystaan ninkaasaga in ilaahay uu ka qabtay dhabarkii uu la damacsanaa hanaanka shareecada ilaahay jubooyinka iyo adeegii qur'aanaa ee qorshaysanaa ee loo soo dhiibay inuu ilaahay fashiliyey lana sii dhamaystiri doono. Sheekh Xasan Yacquub Cali oo ka jawaab celinayay su'aal ku aadan dhankooda khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ayaa sheegay inayan iyagu marnaba ku khasaarin dagaalada isagoo xusayna inay jireen dad labada dhanba ku dhintay amaba ku dhaawacmay inkastoo aanu tiro rasmi ah ku dhawaaqin. annagu dagaalada aynu galno ma aha dagaalo aynu maaragtay ku khasaarayno insha allah ciddii ku dhimataa wadada ilaahay iyo difaaca shareecada ilaahi tabaaraka watacaala insha allah waxaan u rajaynaynaa shahiid walaa nushrik cala allahi axad ciddii naga dhaawacantana waxaweye markhaatiyay maalinta qiyaama u tahay ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu caafiyo waxaa weeyaan meel la isku fara saaray 24 saac dagaal ka socday runtii ragna way ku shahiideen ragna ku dhaawacmeen shaki ma lahan dhankoodana khasaaro badan bay meesha uga tageeno naf iyo maal bale wixii ay maaragtay ay qaadanayeen wixii ay kale ay ka tageenna meeshay uga tageeno way yaalaan marka intaa waa jira yani dhan kasta 24 saac ayaa dagaal ku socday oo meel buur ah ayuu ka socday oo gurigii iyo kala maartay gudahood aan ahayd marka insha allahu wixii jiraan dibbayna ka cadeyn doonaan. si kastaba ha ahaatee dagaalkan ay shabaabku hadda ku dhawaaqeen inay gebi ahaanba soo afjareen ayaa ka bilowday magaalada Kismaayo dabayaaqadii toddobaadkii hore mana jirto wax war ah oo ku saabsan dagaaladan oo laga hayo dhanka kale ee dagaalka oo hoggaanka u ahaa Sheekh Axmed Madoobe amaba mas'uuliyiinta sare ee ururka Xisbul Islaam.